وانا لقوا مثلا جبوتي وين مياه انا وفتي واروح علي احمد جامع تنقلي رجو كجري ee doorkii hore ku jiray waxay ka reeba waad ka aqbasheen waa khalad Soomaaliya sanaagiya cayn halkii bay taagan yihiin dibadbax balaadan oo looga soo horjeedo shirkii shalay dhexmaray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada iyagoo markii dambe isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium Football odayaasha dhaqanka Buuhoodle oo ururada haweenka dhalinyarada ayaa iyagoo halkan ka hadlay waxaan leenahay anagu haddaan nahay Soomaaliya sanaagiya cayn dadkoodii umarada ahaa duqaashoodii waxgaratoodii dadweynaha ama maaskii aan wakiilka ka ahayn shirka cid nooga qayb gashay oo noogu maqan ma jirto muuse wakiil lagama Soomaaliland bani dalka anaga leh kuwa soo halgamay hore soo daraawish soo halgamay tan intii la baxnaanayay soddonkii sanadood kuwii u rimanayay ee diidana kala go'an ma suuroobayso reer qulana laguma masuuxi karo danaha Soomaaliyeed laguma masuuxi karo reer qula danaha Soomaaliyeed waxaan leenahay Soomaali waa isku mid diin iyo dal iyo qaran weeye ma aha wax imka la bilaabayo farmaajo farinta u day waxay tahay farmaajo anoo kuma lihin daarowahan wax noogu qabo laakiin ummadda aan u dhaaratay yaanu ka mid nahay haddii aadna xistido oo aad anaga naxaasido oo aad ka filaadan adigoo iska dhisay anagana dhibaatayso hadda ogaba dhaartaada way ku taalaa waxay tii kalama qoodada doorku waa geedka go'an qoodada dhulbaxanta Soomaaliya sanaagiya cayn waa geedka go'an sida saaraxaasha ogoraysa u sheegtay ragayga maydkiisida kaasa hana xusuusinaya waxaanu iska maydhayno aanu liqayno hana xusuusinaya Soomaaliya Jabuuti waa ummad Soomaaliyeed weeye shirka waxa weeye anagu haddaanu ka maqanahay wax shirreeda ka dhacaya ma jiraan ciidamada uma tasha maadaama aanu maqanay waa sidoo maqay waxay kaba uusan hayn ninkii xalaal meeshu ku xiran lahaa baa laga rabaa dawladda aad geysaan Jabuuti aad ka shiraysaan meeshii aad la tigreeday baa laga rabaa anagu waxaana bridge-ka Soomaali waqooyi isku xidha haddii aad indhaha naga lalisaan anagu ilaa iyo daraawish ilaa iyo dawladda Soomaaliya dagaal baynu ka dhaqaanay hanagu kalifina calanka buluuga aanu weligiisna inaanu idin kala doono aanu kala yeebatano Jabuuti ka socda Soomaaliland iyo ku wada hadlay dowladda federaalkii shirka gobolada SSC cid joogta ma jirto cidna ma tasha ma jirto waxa ka soo baxa lama lihin waxay ku wada hadlayaan lama lihin mowqifkayagu waa cad yahay anagu Soomaaliland kama tirsanin waxa weeyaan taas waa taa ajandaha koowaad ee go'aankayagu waa ka gobolada SSC cid u joogta iyo wax ku matala midna ma jirto waxa weeyaan beesha lagu hadlayo ma aha Soomaaliland protected wadankii loo oran jiray dadkii degi jiray ma aha waa beel gaar ah beesha dhaxal la yiraahdaa beesha iyo cid kale ku wada hadlaya waxay soo qaadan yaga le anagu laba lihin inta kadib waxaan la hadlayaa dawladda federaalka dawlado badan oo federaal ah dhashay dadkani muddo badan buu dagaalamayay qadiyada iyo midnimada Soomaaliya u dagaalamayay dawladihii hore iyo tan maanta joogta midna wax dadka kuma darsan waxay ku darsatay ma jirto wax loo qabtay ma jirto horumarkii baa laga qadiyay wax qabadkii baa laga qadiyay maanta waxa la keenay in la yiraahdo dawladda maanta jirta waxay go'aansatay inay tiraahdo waxaan idinku maslaxayaa beelaha Isaaq qadiyadii SSC iyo dadkii u soo dhimanayay iyo halgankii waxa lagu maslaxayaa inaan shirka loo ogolaan SSC inay ka qayb gasho saasaa nalooga dhigay abaal dhigay Soomaali oo dhan baa abaal nooga dhigtay laakiin anagu marnaba ka tanaasuli mayno midnimada Soomaaliya haddaan Soomaali weynana Ilaahay baan la kaashanayna inta kadib waxaan leeyahay Soomaali qabyaalad ka maarmi weyday Muuse xalay hadaladu ku hadlay hadalla beelaysan bay ahaayeen kuwa kale oo madaxweynayaal soo maray oo xamar jooga yaa maalin walba mudulool leh reer hebel leh waxa weeyaan madaxweynaha maanta waxaan leeyahay jooga Soomaalnimo waxba noogu qaban weyday qabiilnimada waxba noogu qaban weyday
waxaan leenahay haddaad noo quudhi weyday gobollada waqooyi meesha lagaga hadlayo inaannu nimaadno annana waxa weeyaan taariikhday kuu geli doontaa waxaan kaloo caddaynaynaa inaad la dagaalamayso adiga madaxweyne farmaajihii beelaha daarood dhammaantood jubbaland baanu aragnaa puntland baanu aragnaa SSC baanu aragnaa dekadihii soomaaliya dhaqaalahooda lagu soo qaadanayey yaad hobyano dhisaysaa garacadna waa diidday inaad shilin ku bixiso ajadhaha aanu ka hadli lahayna inta uu sheegay buu ahaa marka hore waxaan taageeraynaa midnimada soomaaliyeed inay muqadis tahay somalilan hadduu muuse yahay iyo hadduu cid kale oo aan wakiilano yahay cid nagaga wakiilihi ma jirto nagagana wakiil noqon karta ha dhacdo somalilan ha dhacdo qodobka labaad shirka ka furmay jabuuti ee dowladda federaalka ahi ay hogaaminayso ee ay ugu yeedhay beesha dhexe ee isaaq inay waqooyi matalaan waxaannu shucuurtayada cod dheer iyo cod gaabanba ku leennahay haddaannu nahay sool iyo sanaag iyo cayn cidi nagama wargelin cidi naguma matasho kama mid ma nihin waxaan sheegaynaa cod dheer aannu ku leennahay shirkaasi waa xaaraan wixii ka soo baxaanan qaadanayn shaqaanan ku lahayn saasaan u sheegaynaa adduunka iyo caalamka iyo cid walba qodobka ugu dambeeya aan ku soo gebagabayna iyadoo hadalku iska gaaban yahay somalilan kama mid nihin isku shaqo ma nihin muusaan nagu matelin cid baanan u dirsan midnimada soomaaliya waa muqadis dadka ku nool gobolka cayna soddonkii sane ee dowladda soomaaliya ay dhacsanayd waxay u taagnaayeen calanka soomaaliya iyo midnimada soomaaliya marka hore waxaa ilaahay mahaddiiya haddii maanta soomaaliya la ogaaday inaynan kala go'ayn cid kastaana ay garwaaqsatay cid kasta oo lahayd soomaali waa laba kala dawladoodna ay taasu beenowday waa ilaahay mahaddiiya midda xigta ee aan doonaynaa inaannu ka hadalno waxaa weeye dadkan u dhashay sool sanaag iyo cayn ku soo jireen wadda raf ah iyagoo ah biriishkii soomaaliya isku xidhayay waqooyi iyo koonfur waxay u taagnaayeen midnimada soomaaliya marka hore annaga guushaydu maanta waxaa weeye haddii soomaaliya ay mid tahay taas ayaa maanta horta marka horeyse guusha koowaad noo ah guusha labaad waxay noo tahay haddii maamulka somalilan ay maanta maamul goboleed ay noqdeen ayna ka wada hadlayaan in ay maamul goboleednimadooda maamulka dowladda soomaaliya ay kaga mid noqdaan taasuna waa guusha labaad qodobka saddexaad aan ka hadlayo dadka u dhashay gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxaa layidhi nin baa layidhi u dhashay gobollada sool sanaag iyo cayn haddii ay intaa ku soo jireen waddada rafka ayna dadka guusha keenay maanta inala wada hadlana ay kow ka yihiin waxaannu ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha inay ilgaara ku eegaan leeyahay hundisow hadii gabay ma marin hadalladaydii ma higaadin maasooyinkii igu habboonaay caawana aday soo hordhigay hibashadiisii u hogaysta laabtiiyo gacmaha hadiyadu weeyaan niman yow hibadu waa habeen hoodan loo helo ma hawaysan kara nimaan ahayn higil daraawiish wax sahaybihii dilay kuwa haatan oo kacay nin hooyadii harweyn laga baxshaa ma hida raaceen hawcooy baa inoo dhalay kuwa hawlgalkaa wada ee heerin baa inoo dhalay kuwa hawlgalkaa wada hubsanna weynay goortay hablaha lagu hodaayeen hubsanna weynay goortay hablaha lagu hodaayeen soomaali waa hal ee kuwa haybta kala sheegtay ee calalka haylaamaha la hinduwaasaya waa habar dugaag hayb lahayn hadalladiisii hayb lahayn hadalladiisii afartaa habeeye haddaan horay u weydaarto ka hayaamay hayan weyne iyo haradii caymeed waana habiila'aan hawdinaan hala u fogshaa heelka qararro heegaale iyo hadh cabbuuhoodle heensaha taleex iyo marqaan hurusiya waamo mar haddaan halyeeyada ku nool soo hubguranaynin huunnada iyo huunyada haddaan holc la leefsiinin hubka iyo haddaan lagala hadhin hadiyadday keentay hadli maayo jeeraan hubsada hab iyo taariikh intaasaan idinku dhammaynayaa gabayga soomaaliya barasho wacan waana laguma matala jabuuti weer maya annaga
waar waxa la cali axmed jaamac jingaliya raggu ku jiray ee doorkii hore ku jiray waxay yidhahay ka reeba waad ka aqbasheen waa khalad sool iyo sanaag iyo cayn halkii bay taagan yihiin waa daraawiish ninna ma khasbi karo federaal baa khasbi karin muuse biixi baan khasbi karin anigu warkaa raggalegi warkaa raggalegi warkaa maamulka muuse biixi baa leeyay warkaa caalamkuna woogya ilaahayna woogya waxba iskuma darsan karo waxna nagama dhaxayn kara nabad ma tegi karo shaqo kuma lihin siilaayo muuse biixi anagu ma kala socoyn iyagoo u ballaayay warkaa raggalegi nabad ma talo waxa reer iska dhisto looma baahno waxa la yidhi ninkiisa maalintii lagu doortay diri dhalaan joogay 4 saacadan seexan saan kuugu farxayna ilaahay baa ogaa iminkana waa yaabanahay ninkiisa u nimbaasa oo nin kale u nin khayra cadaabtii baa ku nikaaxsan baa layidhi indhahaaga hoos u eeg dadkaaga iyo dalkaaga hoos u eeg soomaaliya inaad midayso kuma diidanin laakiin annaga ninaad meel wada degteen oo dadkaa bannayd inaad dabadiisa joogtaan ma kuu dambaa weligaa ninbaanu dabagelin weligaa ammaanaan dabagelin bini aadan ingiriis baa noo taag waayey soomaaliya ninka siyaasiyiinta soomaaliya federaalka waxaanu u sheegaynaa inuu dad soomaaliyeed nahay muuse biixina uusan matelin aamuskana aan lagu meerin karin sool iyo sanaag iyo cayn aamuska laguma merin karo waxaa weeye waa dad xuquuqdooda leh waa dad kartidooda leh waa dad calan soomaaliyeed u soo halgamay waa dad u soo dhintay waa dad haraanyo dheer soo maray muuse nama matelo miyuu ina matelaa muuse inama matelo waxaanu ka codsanaynaa wadahadalka soomaaliya iyo soomaaliya la isugu keenayo qoondada iyada waa ka dhex maqan in aanu ka aragno